Tani waa duni aan lagu wada waareyn isla markaana qof kasta oo ku nool laga oofsanayo, laakiinse waa mid lagu kala horeeyo oo qof waliba saacadiisa ama waqtigiisa markuu dhamaado ayaa dunidan laga oofsanayaa. Gabadhan dhalinyarada ku muuqanaysa isla markaana sawirkeeda aad arkayso waxaa lagu magacaabi jiray Raxmo. Saacado ka hor waxay ka mid ahayd dadka dunidan nagula nool, laakiinse hadda dunidan kuma noola oo saacado ka hor ayay geeriyootay. Waxaa gabadhan maalmo ka hor ay u dabaaldegaysay xafladeedii qalinjibinta jaamacadda, laakiin maalmihii la soo dhaafay xanuun soo wajahay gabadhan, ugu dambeyntii waa ay geeriyootay. Inkastoo dunidu ay tahay mid laga wada tagayo, laakiinse gabadhan lagu magacaabi jiray Raxmo waxaa xafladeedii qalinjibinta, khaasatan xaflad kooban oo iyada ay sii qabsatay, waxay ku casuuntay saaxiibo badan oo kala soo muuqday xafladaasi. Balse hadda dunida gabadhan waa ay faarujisay oo kuma noola. Aan u wada duceyno dhammaanteen in Ilaahay jannada firdawsi uu ka waraabiyo. Qof waliba dunidan waxa uu ka tagayaa waqtiga loo aastayay, isla markaana ajashiisa ay soo gasho. Balse gabadhan dhalinyarada ee ku muuqanaysa lagu magacaabi jiray Raxmo waxaa geerideeda aad kaga naxay dad badan oo iyada yaqaanay. Maalmihii la soo dhaafay oo Muqdisho ay ku sugnayd kuna xanuunsaneyd, ugu dambeyntii waa ay geeriyootay. Aan u wada duceyno dhammaanteen in Ilaahay jannada firdawsi uu ka waraabiyo.